وسؤال شابقول تضوي تباتنات وسؤال عجائب لوي قولنا وحي سؤال شكوب لوذي إن الله لا يستحي من الحق وحي تري وحا إقبا ننشنئة حلي آن اسمي سننا أنا نقولين جماعنا يقول سمايا ستوس أهنا أيو يقول ماذا ومركو ربينو حاجة أقوتو وحا يرقبتا وحا موده هردير marka ay hawshiisa gutaa anna toos ayaan u dareemaa hawshiisa waqtina malahan iyo goob uu kugu simayo hadii aan suuq joogo iyo hadii aan guri joogaba way isugu mid wuxuuna inacsiyay ninkaygii caadiga ahaa ee uu igu diray su'aasheedu waxay tahay kow sideen isaga celiyay ninkan jinka ah labo hadii uu jamaaco qubays miya igu waajibay ileen sidan ninkayga caadiga ah u dareemo ayaan isna u dareemayaa jinni iyo insise ma iskuursan karaan بسم الله الرحمن الرحيم سؤال لو سو قري ما ان ددك لغا قسليو لكن waa xaqiiqo jirta culimaduna way ka hadleen waxyaradan si kooban uga jawaabo horta way suroobi kartaa sida culimada badani qabaan in uu jinka iyo insigu isu galmoodaan oo hadda gabadh way wax hadlaysa laakiin rag waxa jira iyaguna naaga jin ah u galmooda iyaguna way jiraan qisooyin aniga soo maray baaba kamid oo nin iyo rag yimid oo yiri waxana nahayst waan xaqiiqo jirta waay marka ragga jinsiga labada jinka iyo insigu horta ma isu galmoon karaan ma suurtagal ma tahay culimo badan waxay qabaan quraankayba weelaka wax ka helheleeno waxay u daliishanayaan aayadii quraanka fi suurati ku jirtay fi suurati ar-rahman lam yatmithunna insun qablahum wala jan dumarka waxa laga hadlayay jannada qoladan dumarkan la siiyay loogu talagalay hortood insina uma galmoonin jinina uma galmoonin baa leeyahay meesha waxa laga fahmay inuu jinku insiga u galmoon karo culimada qaar kamida waxay u dilishay qurtubi iyo waxayba ku keeneenba aayada iyadana fi suurati al-isra ku jirta wa sharikum fil amwali wal awlad athar mujaahid uu ka keenay baa jiro ma aqaan suu sugan yahay wuxuu yiri ninku markuu xaaskiisa u galmoonayo haduusan adkaartii akhriyin bismillah allahumma jannibna shaytaana wa jannib shaytaana ma razaqtana haduusan akhriyin shaytaanku ibtu isaga maraya buu xubinka taranka ibtiis oo isku maraya kadibna islaantii wala isticmaali buu marka wa sharikum fil amwali wal awlad tafsir tafasiirta kamid adiga way suroobi kartaa isu galmoodka su'aasha xigta inay iskuursadaan ma suroobi kartaa jawaabtu waa maya guur ma dhaxmari karo sax ah ilma ma isu dhali karaan ma ka suurowda ilma jin dhalay oo aabba jin u yahay inay hooyo insiya dhasho ayaduna waa maya ma suurowdo Soomaaliyeed laakiin galmadu way suroobi kartaa culimadu saasay leeyihiin طيب dhanka waa dhankaas dhanka labaad dambi ma ku leeyahay ruuxa noocaas ee jinku uu qasbanayo ama ninka naagta jintii ay qasbayso ama haweeneyda ninka muxuu ahaayay ninka jinkii uu u galmoonayo dambi ma leeyahay ruuxaas jawaabtu waxa weeyaan inta badan waa qasban yahay ruuxaas hadduu qasban yahayna dambi ma leh hadii laakiin aadan qasbanayn oo iska celin karto laakiin shaqadan aad u bogtayba
marka dambiilata taasi waxa way ithmi iyo dambi ma ka dhalanaya marka la yiraahdo mas'alada xigta qabays ma waajibaya dhowr xaala loo kala qaadaya fuqahadu markay ka hadleen way ku kala aragti bedelan yihiin masaa'ilna dhoo masaa'il horay looga hadlay waxay leeyihiin haddii uu ugu yimaado hurdo ruuxu isagoo hurda iyadoo hurdo u yimid riyo bay wax ku dhaceen wax biyo ana iskumayna arag qabays markaa waajibi maayo waa ruux qarway oo kale sooma ruux riyooday oo kale biyana kama iskumayna arag xaaladda labaad waxa weeyaan waa inuu ugu yimaado si life ah si toos iyadoo soo jeeda inuu ugu yimaado ruux bini aadanana isu soo ekaysiyo nin caadi iska soo dhigo xaaladda iyada ah waxay la mid tahay iyadoo ruux bini aadana u galmooday oo kale ama biyaha yimaadeen ama yeesan iimaanina way qabaysan xaalad saddexaad waa soo hadhay inuu si toos soo jeed oo life ugu yimaado laakiin aysan arkin balaayo baa ka shaqeynaysa laakiin ma aragto way dhici kartaa waa xaalad kale way laakiin waa soo jeedaa xaaladda iyada haday biyo yimaadaan waa qabays haddaynan imaanin way isku khilaafsan culimo badan waxay qabaan ha qabaysato qaarna waxay leeyihiin war meesha wax la arkahayba hawl ma qabanina biyana ma imaanin see loo qabaysana qaar baa dooda qaba mas'aladaasi marka meelahaas ay mari fuqahaduna saas siyaabaha kala gedisan bay uga hadleen ama see la isaga celin karaa waxaad u baahan tahay in aad barato qaabka shayaadiinta la isaga celiyo sooma أذكار فربنا القرآن كسر أرورتي قابب كلا كتسنا حديث النبي كتب صلى الله عليه وسلم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إلهي نتكو عررته أذكار تمركات سيحان يسو مركات محوها هاي صوت توستو حلي والبوحي ليه هاي أذكار شياطين تلي سقع الياجرت يمحوها هاي دعوي إن تكو بتصوتو إلهي نتكو عررته تبارك وتعالى تاس ayaad isaga celin kartaa ama hadii ilaahay ka qabto tabaaraka wa taala aad muxuu ahay kaga fayoobaan kartaa wabillahi tawfiq su'aasha ugu muhiimsan waxa weeye ma dhici kartaa jinniga iyo insigu inay isguursadaan bismillaahir rahmaanir rahiim salada culimadu way ka hadleen ala saxiixna waxa weeye muxuu ahaayay galmada iyo inuu muxuu ahay u galmoon kara iyo saaysh noocaas oo kale waa wax suuroobi kara ilayhi oo lam yatmithunna insun qablahum wala jan ya ayadahaas wax kala baxbayaan laakiin meher mu'tabar ah iyo guur mu'tabar ah oo ahkaamtii leh inay intay isguursadaan kala dhalaan oo kala tarmaan maya ma suroobi karto bal waxay leeyihiin hadii masalada la sugo nooc waxay noqonaysaa loo xeeladaysto shariicadiiba lagu baabi'iyaba oo haweeney kasto zinaysato garac dhasha dejin baan isqabnaa bay dhih sooma hadii la furo la yiraahdo way isguursan karaan midda labaad sheekhi isu meherin lahaa waa kuma yaa isu meherin midna dadkeedii waa insi midna dadkiisi waa jin sheekhyaba qaali ka noqon oo meherin waligiisa buu u bixin wax la fahmi kara ma sooma saas daradeed xarig iyo meher ilma ku dhashaani sax ma jiri karto ما جري كرتو أما ما استعمالي كرا جينكو دمر كإنسي ما استعمالي كرا انتو اسكسور ديغو بني آذن تاسي